kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan xafiiskiisa kula yeelanayno madaxa suuqgeynta ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel Puntland Maxamed Fuad bal Maxamed soo dhaw marka hore daljir ku soo dhaw shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxa ay kamid tahay shirkadaha isgaarsiineed ee ka jira Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay inta badan soo bandhigaysay ama bulshada u haysay adeegyo kala duwan bal maxaa ugu waaweyn hadda adeegyada shirkadda aad baa mahadsantihiin warbaahinta daljir waa dhawahay waxaan idinka mahadcelinayaa shaqada baaxadda aad u haysaan ummadda Soomaaliyeed dhan guud ahaan gaar ahaan reer Puntland iyo meelaha ay warbaahintu kale aan aad ka u gaarnay aad booqataan shirkadda isgaarsiinta ee Somtel tan iyo intii laga furay deegaanada Puntland waa shirkad koraysa oo markasta wax soo bandhigaysa cusub tan iyo maalintii la furayna markasta deegaanada waxay ku soo kordhinaysay waxyaabo cusub oo aan hore uga jirin si ay u buuxiso kaalmaha bannaan ee bulshada u baahan tahay laga soo bilaabo markii la furay oo ay shirkaddu xoogga saartay inay baahida internetka ay ka qabto bulshadeena waxa soo baxay isbedello ay shirkaddu sameynayso oo ay ku talaabsanayso maalin ka dambaysa waxyaabaha ugu badan oo ay shirkaddu soo kordhisay oo ay saarto waxa kamid ah adeegga 4G-ga oo hore deegaanada Puntland uga jirin waxay keentay adeegga fiber optic oo hadda magaalada Boosaaso ku cusub oo 2021 hadda dhamaaday oo reer Boosaaso ay isticmaalaan magaalada jeexitaankeedu u socdo oo hadda ay gabagabo marayso deegaanada Puntland wada gaari doona shirkaddu sidoo kale waxay tartan iyo xamaasad gelisay suuqa waxay bulshada bartay si in bulshada wax loogu celiyo oo macaamilka qiimo u yeesho waa shirkadda kaliya ugu horeysay oo gawaari dad is guursanaya aqal u gaday bixisay hadiyado kala duwan scholarshipyo dalxiisyo waxyaabo badan bay ka qayb qaadatay deegaanada Puntland ku soo kordhisay sidoo kale waxay kaalin firfircoon ka qaadatay arrimaha bulshada oo sida taakuleenta dadka masaakiinta abaaraha masuuliyadda kale ee soo kordha waxyaabaha horumarka garoomada wadooyinka boodada waxyaabahaas oo dhan arrimaha bulshada kaalin weyn bay kaga jirtaa oo aad bay uga qayb qaadataa dhanka baahashay waxbarashada oo kale shirkaddu aad waxay u sahashay in internetkeeda laga heli karo meel kasta oo deegaanada ah ardaduna ay tahay waxa ugu badan oo shirkadda macaamilka la ay tahay ardada marka shirkaddu tan iyo intii ay timid deegaanada Puntland waxay wax weyn ka bedeshay dhinaca isgaarsiinta iyo horumarinta bulshada waxaan ognahay in ardayda ay yihiin dadka ugu badan hadda isticmaalaan dhalinyarada dadka ugu badan isticmaala adeegga internetka qiimeyn ah samaysan ma jirtaa in ardaydu ay aad ugu kalsoon yihiin internetka shirkadda ay bixiso dhanka dhaqaalaha marka shirkaddu macaamiisheeda ugu badan anaga waa dhalinyaro weeye boqolkiiba 80 in ka badanba waa dhalinyarada goobaha waxbarashada waxa ugu badan oo ay isticmaalaan dhalinyarada ama internet inta ugu badan oo isticmaasha waa dhalinyarada sababaha ku doortaan waxa kamid ah waanu ka jabanahay shirkadaha kale waddanka jooga oo anaga ardayga ku shubtaa kontonka senti 2 GB buu helayaa xidhmo waxa jirta dhalinyarada xidhmo furan oo aan ugu talagalnay dadka wax barta aan ugu talagalay waa 0.9 buu ku shubanaya waa less than dollar buu qof ku shubanaya wuxuu helayaa data aan ka dhamaaneen iyo hadal aan ka dhamaaneen buu helayaa qof $6 buu usbuuc iibsanayaa unlimited data helayaa unlimited call buu helayaa adeegaas kan wuxuu talagalay dadka waxbarashada waxbarta si guud bishii oo dhan ardaygu wuxuu ku hadlayaa $3 buu ku hadlayaa oo imtixaanaadka ku diyaarsanayaa bishii oo dhan guud ahaan Puntland $5 oo 12 GB ah baa laga yaabaa bishii oo dhan inuu isticmaalo oo uu ka helo internetka u baahnaa waliba internet fast ah marka sababaha inoogu imanayaan dhalinyarta iyo dadka jeebka yar oo dhan waxa kamid ah waanuna ka xawaare sareynaa shirkadaha kale waanuna ka qiimo jabanahay oo labadiiba isku haysaarday content buu 2 GB ku helayaa iyo free call oo 24 hours waxa uu citaan sameeyaa waa 2 GB muddooyinkii ugu dambeeyay waxa wadeen adeegga fiber optic-ga oo aad hadda qaybo kamid ah wadooyinkii la qoday dhulka bal hadda goorma la rajaynayo in soo gabagabeeyo adeegga fiber-ku waa kala labo horta waxaan ugu bishaareynaa Garowe iyo Qardho iyo Boosaaso inay isticmaali karaan fiber optic oo aan ku geeyay microwave ay isticmaali karaan gaalkacyo insha Allah waxaan rajaynayaa in lagu soo biirto bisha 5-teeda fiberka si fiican buu u helaysaa oo iyadana microwave ku geenana santaleen ahaan laakiin qoditaanku Boosaaso hadda waa dhamaaday qoditaankii magaalooyinka kalena waa ku xijeenaa hadda waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in aan guud ahaan Puntland isugu wada xirno fiberka laakiin magaalada Boosaaso hadda dhamaatay oo qoditaankeedu u dhamaaday oo guud ahaan magaalada hadda qoditaankii meel kasta xarig waa yaala isagoo microwave-na way si isticmaalayeen dadku si ay u helaan internet inta la qodayo deegaanada Puntland saas kala sameeyna marka waxaan rajaynayaa sanadkan inuu noqdo maaragtay sanadka duwan sanadada hore halka hadaan wareysi uga faa'iideysto hada sanadka 2021
waxaan daha furaynaa berri oo ah 1 Abriil barnaamij la yiraahdo daryeel bulsho. barnaamijka daryeel bulsho wuxuu macaamiisheeda siinayaa gawaari, wuxuu siinayaa dahab, wuxuu siinayaa tiifiyo, wuxuu siinayaa qasaalado, wuxuu siinayaa internet, wuxuu siinayaa abaalmarino aad u fara badan. abaalmarinada macaamiishu waxay ku helayaan inay isticmaalaan adeegga shirkadda Somtel. macaamilku wuxuu ku shubanayaa lacag buu ku shubanayaa lacagtiisa uu ku shubtay oo ku hadlayo waa abaalmarin ku helaya. gaari kulugara ku jira oo fara badan, waxaa ku jira dahab dhameystiran oo sad ah, waxaa ku jira TV smart ah, waxaa ku jira mobile smartphone, waxaa ku jira qasaalado. waxaan ugu talagalay in ay macaamiisheeda iyagu adeegooda isticmaalayaan aan abaalmarin dib ugu celin anagoo aniga maartay waxa barkeen berrito 1 bisha waa dah furan insha Allah. waxaa jiray bixinta saamiga yoolka laga leeyahay waa maxay؟ waa su'aal fiican waan ka mahadcelinayaa. barnaamijkaas shareska ay shirkadu furtay waa wax u furan macaamiil kasta ama muwaadin kasta oo deegaanada Soomaaliyeed jooga, gaar ahaan muwaadiniinta deegaanada Puntland ku sugan ama deegaanada Puntland ku sugan. shirkadu waxay u furtay macaamiisheeda sheerar ama saami u furtay. shirkadu waxay ka duwan tahay shirkadaha kale markii la bilaabayay baa dadka waxa laga ururiyay lacagta ay shirkadu ku shaqeynaysay oo hoos baa laga ururiyay. laakiin Somtel waxay sameysay dhaqan fiican oo ka duwan oo ah shirkadu in marka hore ay iyadu ismaal geliso oo iyadu wado oo dahabshiil Maxamed Sadaalo isagu si maal geliyo goorta ay lugaheeda ku istaagtay oo dhismaheedii iyo maalgelinteedii iyo wax kasta loo dhameystiro waa isku filaatay baa bulshada la yar ka soo qayb gala. waa geed la beeray oo koray oo midho yeeshay oo aad ka qayb gelisay bulshada marka inay midhihii la guran lahaa kala qayb qaataan. marka shirka waxa lagu talagalay dadku inay nala faa'iidaan oo nala shaqeystaan oo shirkada weyn ee mustaqbalka leh ee dahabshiil group kamid ah fiber keela bankiyada leh xawaaladihii leh iyo dahabkiila wax kasta la guud ahaanna Soomaaliya cirifka ilaa cirif ka shaqeynaysa inay bulshadu ka qayb qaataan oo ay mustaqbalka ay chance u helaan inay mulkiilaad ka mid noqdaan shirkadaas. marka dadkana waa ugu baaqi lahaa inaanay ka hadhin chance-ka maanta waa fursad yar oo haddaba gabagabo mareyso oo aad waqtigeeda u dhow yahay in is xidho. marka dadku waxaan leeyahay ka soo qayb gala barnaamijkaas.